maamulka jaamacadda Timcadda University ee gobolka Gabiley ayaa kulan soo dhaweyn u qabtay ardaydii ka soo baxday dugsiyada sare ee sanadkan iska diiwaangelisay jaamacaddaasi. Kulankan oo ka dhacay hoolka jaamacadda Timcadda University ee magaalada Gabiley ayaa waxa goobjoog ka ahaa maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Timcadda, gudoomiyaha golaha deegaanka Gabiley ahna duqa magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Abdi oo isagu ka mid ahaa ardaydii hore uga soo qalin jabisay jaamacaddaasi Timcadda, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Gabiley, maamulka heer gobol ee wasaaradda waxbarashada, cuqaal, arday iyo marti sharaf kale. waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay maamulka jaamacadda Timcadda oo sheegay inay sanadkan wax ka baran doonaan arday ka kala socota magaalooyinka Wajaale, Hargeysa, Arabsiyo, kuwaasi oo ay u sameeyeen gaadiid ka soo qaada magaalooyinkooda. waxaana ay yiraahdeen jaamacadda Timcadda waxaan ku soo baxday digriyeeta madaxweyne haddii aan ku tartamay magaalada Hargeysa maalintii weyn jaamacadda private waxaan halkan ka qiraynaa inay tahay jaamacad public jaamacad u taagan ummadda Soomaaliland, jaamacad ku tirsan dowladda Soomaaliland, jaamacad taageeradeeda iyo maamulkeeda ee jamhuuriyadda Soomaaliland. jaamacaddu waxay ku faanaysaa inay ka soo baxeen marka aan ugu horeeyo maayarka caasimaddan marka Gabiley, waxay ku faanaysaa inay ka soo baxeen xildhibaano tiro 6 waxay ku faanaysaa inay jaamacadda ka soo baxeen isduwayaan, waxay ku faanaysaa jaamacadda inay ka soo baxeen dhiman iyo saraakiil kala dowladeed. waxay jaamacadda ku soo gaari doonaa oo sanadkan marka semester-kan bilaabay in lagu yimaado bas. waxay future-ka u ballan qaadaysaa Hargeysa uga ballan qaaday jaamacadda semester-ka soo saaray sanadka soo socdaba ardayda ka imanaysa magaalooyinka Hargeysa iyo Fufo iyo wixii ka fogba inay siinayso accommodation chief of oo guriga loo kiraynayo, sariirooyin loo dhigayo, TV iyo internet iyo library loo samaynayo. maanta waa waqtiga ugu fiican ee ardaygu markuu ka soo baxo dugsiga sare jaamacadda u gudbayo. waa waqtiga ugu fiican oo magaranaysa aqoonta uu korursanayo. qof waliba meel waqtigu u gudbaa aqoonsana ma dhamaato. maanta waxaad bilaabaysaa first group sanadkii cusba. marka hore waxaan idin rajaynayaa khayr, waxaan idin rajaynayaa inaad ka nasiib badantihiin qolooyinkii hore, waayo waxaa mar walba waxa isbedelaya improvement baa jaamacadda mar walba ku dhacaya isbedela oo horumara. iyo hay'adda UNDP ayaa sanadkan iyo sanadkii dhafay dabayaaqadiisii waa dhowr imtixaan qaaday, natiijadii iyo wixii ay soo saareen ardaydii Timcadda ka baxday halka ay kaga jiraan. waxaan maleynayaa intiina badan inaad la socotaan. waxaan idin rajaynayaa guul, waxaan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Gabiley Amiin Cumar Abdi iyo mas'uuliyiintii kale halkaasi ka soo qayb galay. runtii aad iyo aad baan runtii farxad u dareemayaa. madashan aynu joogno waxaan soo joogay muddo 4 sannadood khaasatan waqtigan oo kale ayaan iman jiray waxbarashada aan dhigan jiray. waxaan aad iyo aad jeclahay inaan u hambaliyeeyo maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Timcadda University ee ku guuleystay inay gaarsiiyaan jaamacadda heer ay kasban karto arday aan ka soo toosin degmada Gabiley. aad baan u hambaliyeynayaa. waxaan leeyahay waxaad samayseen tallaabo laydinka filayay jaamacaddan Timcadda University inaad gaarsiisaan. waan idin garab taaganahay, waan idinku hambaliyeynaynaa. ardaydana waxaan rajaynayaa inay ka faa'iidaysan doonaan dadaalka aqooneed iyo waxbarashada hore. sidaan oo kale chance-kan oo kale aan uga jaamacadaha galaynin maanaan helin, laakiin caawa aad iyo aad baad nooga chance badan tihiin. waana wax aad iyo aad loogu farxo. noloshuna waxa weeyaan waa ciyaan, waa geedi weeyaan. in badan waa xiriirsan tahay. waxaa lagaaga soo bilaabay primary education-kii, intermediate-kii, secondary-gii iyo qaybtii afraad tertiary education-ka loo yaqaano oo caawa bilowdeen. alxamdulillah baan leenahay in jaamacaddii maanta waxa weeyaan meel walba looga imanayo. waxaananu ammaanteeda iyo milkaheedaba siinaynaa maamulka jaamacadda oo hawshaasi maanta in lagu soo hirtaa keenay. waxaan leenahay jasaakumullahu khayr. ardaydana waxaan leenahay ku soo dhowaada waxbarasho iyo dhul degan oo aan ahayn dhulkii saxmadu ka jirtay. Sakariya Nuux Ibraahim, Royal TV, Gabiley.